Soomaaliya ay moogtihiin ma isweydiiseen waxa uu qoseeyo safarka oo Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha farmaajo ku joogo dalka Turkiga. wax kala ma aha wax weyn ha u qaadanin arrimaha ugu muhiimsan waxa weeye xilligii Xasan Sheekh warshad ayaa la gaday oo loogu talagalay in ciidamada qalabka sida dharkeeda lagu sameeyo warshadaas Xasan ayaa gaday 3 milyan oo dollar laga bixiyay Turkiga ay taala waxa uu kaliya doonayaa uu socdaa Xasan Cali Khayre in warshadaas oo u saxiixo oo ku wareejiyo nin ganacsada oo leeyahay Cabdikariin Maxamed Hiraabe oo loo yaqaan Gambe oo ay isku yihiin beesha Mursa gaar ahaan habar cayno urgaale ninka ayaa ka soo horeeyay toddobaad ka hor ayuu yimid Turkiga jooga ninka ayaa lagu wareejinayaa warshada kadibna heshiisku wuxuu yahay in Cabdikariin Gambe iyo Xasan Cali Khayre ay ku heshiiyaan oo ku shirkoobaan warshadaas laga dhigo warshad ganacsi oo lagu sameeyo dharka noocyadiisa kala duwan sida shaatiyaasha caadiga saraawiisha caadiga kuwa ciidanka qandaraas looga qaato xasuusnowna waxa weeye wuxuu soo cashiray wasiirkii gaashaandhiga waxay ahayd kadib markii lacag 1,500,000 oo ciidanka loogu talagalay in loogu iibiyo agabkooda ay kala qaybseen isagii ra'iisul wasaare Khayre oo ay lacagta kala qaateen sidaas ayuu isku casilay lacagtaas dawladdu bixiyay la soo celiyo xisaab celis waxa la helay 200,000 ayaa la helay 1,300,000na waxay ku maqnaatay Xasan Cali Khayre iyo wasiirkiisa gaashaandhiga saas ayuu isku casilay marka waxa weeye su'aasha kaliya ee maanta la isweydiinay waxay tahay dawladda Turkiga ma ogolanaysaa in hantida qaranka Soomaaliya ay la ogolaatay inay siisay gacanta u geliso nin musuqmaasuq astaan u noqday oo doonayay inuu ku tagrifalo hantidii shacabka ay wada lahaayeen ama hantidii ciidanka qaranka ee warshadii loogu talagalay dharkooda inay samayso lama oga laakiin xildhibaanada ila soo xiriir waxay dawladda Turkiga weydiisteen in aysan warshada ku wareejin Xasan Cali Khayre wadaara cali soo leh dabaysha geedaha uma ruuxdo inay ciyaarsiiso habaqlayso